madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa cudurdaaray iyo raaligelin ka bixiyay xasuuqii dowladii kacaanka militariga ee General Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay ay u geysatay shacabka gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay shir ka socday magaalada Muqdisho ayaa cafis ka dalbaday shacabka gobolada waqooyi gaar ahaan shacabka reer Somaliland. cudurdaarka iyo raaligelinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa imaanaysa maalin kadib markii magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kulankoodii ugu horeeyay ee koobaad ay ku yeesheen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. haddaba shacabka Somaliland ma aqbali doonaan cafiska uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dalbaday? sideese uga soo jawaabi doonaan hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo?